There's obviously a risk, though, as well, that this election could be stolen and that Erdogan could... بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويران شن kala duwanaansho aad u waaweyn ayaan kula wadaagi doonaa. waxaan ka bilaabaynaa ugu horeyn mid ugu haysta badan iyo sababta doorashadan Turkiga ka socota ay muhiim u tahay inaad wax ka ogaato. ma og tahay ugu horeyn caalamka inaynan jirin doorasho warbaahinta ay tabiyaan, warbaahinta caalamkan ula jeeda waaweyn si toos ay u tabiyaan oo ay xoogga saaraan aan ka ahayn hal doorasho. waa hadda hal doorasho ugu kaliya xoogga saaraan. midaasi waa tee waa Mareykanka. dawlad kale oo caalamka warbaahintiisa intay isu tagto ay sida u tabiso oo lala socdo daqiiqad oo sida loo xiiseeyo caalamkan hadda aan ku jirno aan ku noolnahay ma inaan dhicin. laakiin hadday cusub tahay oo arintan Turkiga ayaana daliilkuga ah. waxaad arkaysaa warbaahintiyo u wada tartamaya khaasatan kuwa reer galbeedka sida midba midka kale warbixinta mideeda ugu kulul oo u keeni lahaa. haddaan ku bilowna marka arintan halista ay leedahay iyo muhiimadda ay leedahay gaar ahaan caalamka islaamka number 1 aan ku siiyo ko waxay tahay ninkan kale la tartamaya ee Oglo ama Kılıçdaroğlu Oglo waxaas oo kala magaciisa yani waa adag yahay Kamal oo ay kulli tan filayo almuhim waa shiiciga ah calawiga ah wuxuu aaminsan yahay boqolkiiba boqol in uu soo celiyo Turkidii Mustafa Kemal Atatürk oo ahayd Turkiga cilmaaniyada ahayd diinta islaamka haba yaraatee shaqo aan ku lahayn ee ka qaawneed ayuu doonaa inuu soo celiyo. number 1 u fiirsa arinta meesha ay leeg tahay baynama Erdogan asagan oo u taagan yahay wixii aad ogeydeen idima sharaxayo in wax alla wixii arintaasi cilmaaniyada ka soo horjeeda inuu hal u baabi'iyay kuna socdo tii ugu dambeysay ugu weyneed caalamka oo dhan oo ku kacay ay ahayd masjidka Hagia Sophia ama Hagia Sophia ee mutxafka ay ka dhigeen oo asaga oo ku soo celiyay. bal u fiirso yani meeshaas la isla maraya marka qof islaam iyo diinti Allah tabaaraka wa taala wadankii laga baabi'iyay ku soo celiyay si wada halna dabcan jaranjarada saa u fuulaya iyo qof dhahaya maya waxa aad soo celiso dhan inta baabi'iyo ayaan sidii hore ku soo celinaya. waa halista koowaad ee ugu weyn ayna tahay inaad u ogaato arintan yaa taageeraysa yaana taageerayn. macnaha taageeradaada iyo taageerada muhiim ma aha haba yaraatee wax aan ku kordhinayna haba yaraateen ma laha sidaas oo kale. laakiin caalamkan maanta aan ku noolnahay iyo taariikhda waxa ay sheegi doonto ilaan sidaan uma noolaan doono waan dhiman doona jiilal kala imaan doona. jiilashaasi marka si u ogaadaan khaasatan adiga maanta inaad nooshahay doorashadaasi aad xaadir tahay ee labadaasi ay tartamayaan una tartamayaan xaqi iyo baadilkii haddaan kuu soo koobo. labadan hogaamiyana mid walba sababta u tartamaya iyo wuxuu miiska soo saarayo cadeen iyo markhaati dadku tusay. bal u fiirso wuxuu midkana tusay uu leeyahay waa ii jeedaan Mustafa Kemal Atatürk ninkii Turkiga cilmaaniga aasaasay taaladiisoo tagay kuna khatimay asagoo dhahaya waad ii jeedaan taaladii ayaan tagay waan iga go'anta inaan soo celiyo arintaasi. dhinaca kalena madaxweyne Erdogan wuxuu tagay masjidkii mutxafka ay ka dhigeen qoladan Hagia Sophia ama Hagia Sophia oo ku soo xiray asagana ololihiisa asagoo dhahaya kanaan ka turjumaya anigana iyo wax alla wuxuu xambaarsan yahay yani diinta islaamka. marka intaasi waa qaybtii koowaad. midda labaad ee muhiimka ah oo ay tahay inaad ogaato waxay tahay ajnabiga guud ahaan ee Erdogan oo u furay wadanka gaar ahaan Suuriyiintii qaxootiga ahaa kuwoodii dabcan iska basiidka ahaayee dabcan shacabka ahaa iyo kuwooda xirfadlayaasha ahaa ama ganacsatada ahaa ayuu qofkan wuxuu leeyahay Kemal Oglo kuwaasoo dhan wadanka waan ka saaraya dawladda Suuriyan la heshiinaya kadibna waan celinaya. Suuriyaanka wadanka aad joogan waxay leeyihiin war haddaad celiso ninkeena ma qalanayo si walbaad u heshiisa adiga. baynama Erdogan oo ku doodayo dadkaan aad celinayso horta ugu horeyn waa walaalaheena kow. midda labaad dhaqaalaha iyo kobceena ay qayb ka qaateen dhaqaatiiray leeyihiin ganacsatay leeyihiin. nacam Suuriyaanka ma ahan dad hadda yani nacam asal ahaan shacabka mar walba badnaan intay u badan yihiin waa fuqaro asalka laakiin ganacsatadii waaweynaa ee Suuriyaanka ahaa meesha ugu badan ay maalgashadeen ee saraha ama ganacsiga iyo wixii lamidka ay ka furteen waa Turkiga. sidaas oo kale dhaqaatiir ha noqdaan iyo xirfadlayaal jaamiciyiin oo macna professor iyo wixii lamidka Turkiga way ka faa'iideysatay. wuxuu leeyahay marka annaga xataa wax noo tareen caalamkana ogow waxyaalaha lagu kala hormaray ayaa waxa kamid ah mataqaanaa ee Mareykanka iyo Yurub iyo yani siyaasadaha u degsan wax weeyaan wadan walba waxay ka soo qaataan khaasatan wadamada faqiirka ah Afrika iyo Asia iyo laba qol ay ka soo qaataan. qolo waxay tahay waxa la dhahaa professionals yani waa dad qualified ah
oo aad iyo aad macnaheedu xirfadlayaal u ah dhakhaatiirta ha noqdaan professorada ha noqdaan siiba dhakhaatiirta Afrika intooda badan ayaga ka soo qaata wadamadan Mareykanka iyo Yurub waxay kala soo qaataan injineerada khaasatan kuwa kombiyuutarada iyo IT-ga iyo ku takhasusay ee aadka u yaqaana hadda u fiirso shirkadaha reer galbeedka badana yani yaa hogaamiya inta badan ama director-ka ama CEO-ka waa ayo badana waa dad Asian inta badan ama Afrikaan ah tusaale ahaan Uber shirkadan Uber ee taksiga iyo wixii la midka ah nin Asian weeyaan ninka ugu sareeya Google waad ogtihiin sidaas oo kale waa nin Asian ah Hindi ah marka sidaa dadka waxtarka u leh ee aqoontan u leh ayay ku dadaalaan inay soo qaataan number 1 mid labaad dadka kale shacabka ah ee la soo qaato waa maxay ayagana waxa la dhahaa low labor yani waa shaqaalaha hoose oo warshadaha iyo wixii la midka looga baahan yahay sidaa darteeda waxyaalaha ay ku dhisan yihiin dhaqaalahooda oo sida ugu kobcayo waa labadaas inta badan Erdogan marka siyaasadiisa waxa kamid ah uu fahmay qayb kamid ah arintaas oo ah xirfadlayaasha waaweyn ee dhakhaatiirta ah ee dhinacaasi kale professorada jaamacadaha iyo wixii la midka ah ayuu wax ka fahmay waa kaas ay ganacsatada cafwan sidaas oo kale ku dar نعم dhinacan hata way tahay sidaas oo kale marka wuxuu leeyahay warnooda arintan anaga anfacaysa dadkeena wax u taraysa qodobka saddexaad waxa weeyaan ninkan Kamal Oglo oo ku doodaya waxaan soo celinayaa wada hadaladii Europe inaan ku biirno European Union-ka ee atakisay ayaan soo celinayaa waxaana bilaabayaa hadeertan dalab ah in aan ku biirno wada hadaladaasi kada inaan bilaabo Erdogan wuxuu leeyahay war wada hadaladaasi waan ku daalay san albaabkooda u taagna hadda ana daalay isaga soo laabtay albaab aan laga rabinna hadda taagnaatid ceebad la kulmaysa ceebaan kala soo kulmay waan isaga soo tago taagan yahay qodobka afraad ee aadka u weyn ay ku kala duwan waxa kamid ah sidaas oo kale oo Kamal Oglo uu leeyahay waxaan soo celinayaa si wanaajinaya sidaas oo kale xiriirkii xumaaday ee Mareykanka iyo Yurub aan la lahayn Turkiga hadaan nahay sidaas oo kalena Sweden waxaan u fasaxayaa ama aan ogolaasho siinayaa inay ku soo biirto NATO beenama Erdogan uu leeyahay Sweden waxaan dabcan u hor istaagay laba arin mid waxay tahay kow dadka argagixisada ay u yaqaanaan Turkiga ee Kurdida ah khaasatan ay la dagaalamaan inay ugu soo wareejiso iyo labo rasuulka calayhi salaam ihaanada li ihaanaysanayo kitaabka quraanka ee mar walba lagu gubaayo inay joojiyaan halagelina ka bixiyaan labadaasi arin iyo dabcan wixii kale u qarsan taana way ku kala doon yihiin midda shanaad marka waxay tahay ayadana sidaas oo kale midna aaday u weyntahay sidaas oo kale maxaa yeelay ninkan wuxuu ku doodaa Kamal waxaan ku soo celinayaa Turkiga siday ahayd oo ah parliamentary system in baarlamaanka oo xukumo awoodda ugu sareysan baarlamaanka uu lahaado Erdogan wuxuu leeyahay may wax ka jir ma lahan baarlamaan hala soo ansixiyo kada waxaasi waqti dheer ay qaadanaysaa in wadankeena uu hormaro sidaa darteed uu dabcan 2017 ama 18 mid ahayd ma xasuusto ayuu wuxuu sameeyay in cod dadkii ka qaaday uu leeyahay ma baarlamaanka sidii idin xukuma mise madaxweynaha awood siinaysan sida Mareykanka iyo Faransi ay yihiin oo kale marka waxay doorteen dadku waa maxay inuu madaxweynaha xukumo sababta weeyaan reer galbeedku ay u leeyihiin dictator maxaan ku raakay taliye oo balaaye ah oo macaanka waxay u leeyihiin macnaha asaga iyo madaxweynihii ayaa awood badankeeda haysta marka asaga wuxuu taagan yahay aniga aan ahay madaxweynaha ama madaxweyne kale haduu yahay haduu taliyo baarlamaanka ra'yay ku leeyihiin dabcan iyo wasiiradii iyo dawladda guud ahaan laakiin inaan yeelano system madaxweyne marka kaana way ku kala duwan yihiin arinta ugu dambaysan ku khatimay waxay tahay arintan la yaab kale oo ah warbaahinta qaarkiisa waxay taagan inay leeyihiin Erdogan waa tuug wuu xadaaya waa kaasa u fiirsada maxaa dhici doona journal ay ku soo qoreen idaacadahoodii telefishinada ah ayay ka leeyihiin caadi obviously si cad ayaa Turkiga doorashada loo xadi doonaa laakiin cagsigeeda maxay noqotay ilaahayna ka dhigay inay arkaan inay waxba ka jirin wariyadan su'aasha ay weydiinayso bal u fiirso oo ah in la xadi doonay aaminsan tahay saasay ku leedahay There's obviously a risk though as well that this election could be stolen and that Erdogan could in some way try to cling on to power, isn't there? u fiirso si toos ah waxay u weydiinaysaa caadiyan waxaa noocad in Erdogan uu xadi doono doorashadan haddii dabcan laga guuleystana balaayo u dhigi doono wixii la midka ah iyo jawaabta ay helayso Well, you know, it's interesting because people here in Turkey feel more confident about the results. macnaha meeshaas ay ka maraysaa shubhad in lagu furo doorashada iyo wixii la midka ah laakiin jawaabta la siiyay waa jawaab aynan filaynin xaqiiqatan aad u adag siday ahaataba intaasaan kusoo koobayaa inaad ogaato marka doorashadan sidaa saameynta u leh ee khaasatan warbaahinta caalamka oo dhan sida ay u faafinayso iyo waxyaalaha ka socday dhagaraha iyo waxa macnaha ay labadan dhinac ay u taagan yihiin aaday u wanaagsan tahay barakallahu fiikum ilaahina tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa doorashada lagu celin doono bishan 28keeda inuu soo saaro soo celiyo Erdogan ilaahay idinkiisa oo qoladaasi si tooska u cadaysanaya naceebka diinta iyo wixii la midka inuu ilaahay tabaaraka taala meesha ka saaro sida haddaba looga sareey in looga sii sareeyo oo meel fiican ay gaarto oo konton iyo kow iyo ka badan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyaan ilaahay uga baryeena wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh